marka waan run ahaantii u hambalyeynaya dhammaantiin 12 sano tarba aad baan idinku hambalyeynayaa si gaar ah waa u kacay saaxiibkay wasiirkayga warfaafinta Usmaan Abuukar Dubbe ayaan si gaar ah ugu sii hambalyeynayaa waxa uu ahaa libaax dabarka soo goostay waa libaax dhalidii la oran jiray oo dhinacan aabaana waa libaax dhinacan hooyadana waxa uu ka soo jeedaa Suldaan Diiriye waa kii dardaarmayo nimankii la yiri war labada gacmood bay isugu hay haddaad gacan galiyo ku qaban weydo labadaba iyaga isugu gee marka malaha cidii dabarka ku haysay labadii gacmood baan isugu geeynin deedna libaax soo goostay uu noqday marka inta saaxiibkay baan leeyahay dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo qodobka kale aan rabo inaan ka hadla waxa weeyaan ee laga hadlay joogitaankeenna magaalada Xamar joogitaankeenna Xamar waa wada ogtihiin sanatarada soo baxay iyo dad badan oo inaga ah oo mas'uuliyiin ah oo xilalka haya ama jooga nolosha hadda ka hor ay haysteen rag badan iyo gabdho badan haddaad tilmaami kartid culays iyo siyaasadda culayskeeda ay ku bedesheen nafur iyo sacrifice ay ku bedesheen waxay ugu bedesheen in ay wax ku beeriyaan qarandhiska Soomaaliyeed joogitaankeenna Xamar macna ma yeelanayo haddaanu midho dhal ahayn haddaanu ahayn mid midho dhal ah maxaanu u joognaa in aynu qeexnaaba loo baahan yahay joogitaankeenna Xamar haddii aanu midho dhal lahayn waxa uu hagartaamo ku yahay Soomaaliland inaynu iska joogno miiska wada xaajoodka ama jihaynta Soomaaliya aan macna uuna ku soo biirinahayn aanu qeexahayn nooca dawladnimada loo baahan yahay ay Soomaaliland tahay qayb inay ka noqoto midnimadii dib loogu yaalgeelaa muxuu yahay wax macna ah ma keenayo haddii aynu u taaganahay midnimo waana ku raacsanahay gudoomiye Cabdi Xaashi hadalkiisii ahaa midnimaduna muqaddas ma aha kala taguna muqaddas ma aha muqaddasnimadu waa wixii lagu heshiis yahay islaamkuna saasuu qaba almuslimuuna ala shuruudihim shuruudii lagu heshiiyeyna sideedii loo fuliyo oo lagu dhaqmo marka waa inaynu dib u qeexnaa maxaan halkan u joognaa maxaa inaga maqan maxaa inaga qabyaha seen u dhameystirnaa waa tii ninkii yiri waleela ii dooray ama daadku ii qaaday haddii aynaan taa xaqiijinin wax macna leh oo aynu soo kordhinayna ma jirto 40 sanadood ee soo soconada taasa shardi inoo ah marka walaalkii Cabdi Ismaaciil Samatar waxa la yahay professorka doorkan walaweynta u kala dusimayno ee shuruudaynu hor dhigayna inagoo midaysan oo mid ah oo reer waqooyi ah baynu leenahay nimanka qooqan ee walaweyn maxaa ugu jira danta Soomaaliland iyo waxaad ka qabtaa muxuu yahay marka taasaan kuugu bishaareynaya barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waa aragtaan sanadka waxa isugu soo baxay doorkan jilib culusti professoro aqoon-yahano siyaasiyiin miisaan culus leh iyo rugcada iyo agwaano gabdho iyo wiilalba ayaa isugu yimid tartan furan oo xor ah oo fiican oo ka dhacay waxaan isleeyahay doorashada golaha shacabkuna saasoo kale 46 xildhibaan ayay u ahaan doontaa mid qurux badan oo sida maantaba loogu soo hambaliyay aqalka sare loogu soo hambaliyayo haddii ayna markaa taa xaqiijinin doorasho qurux badan midnimo iyo wada jir wada kaliya ay noo furan waxay noo furan wadadii Ismaaciil Buuba Axmed Ismaaciil Samatar Ali Khaliif Galayr iyo Sifir in aynu macna keenno iyo in wadadii ragga hore iyo gabdhaha hore mareen aynu marno labada wax inooga dhaxeeya ma jirto aynu taas ku midowno isku kaashano meelna ku wada marno ballantaas oo meena wada qaadin taas ay noo ballana odayaasheenii iyo dhalinyaradeenii iyo dhaqankeennina goobjoog buu ka yahay ugu dambeyntii waxaan doonayaa inaan idhaa doorashadii aqalka sare way noo dhacday tii golaha shacabka ayaynu hadda u soo jeedsanaynaa dardargelinteedii iyo ka shaqaynteedii iyo meelmarinteedii waa run xanuun iyo xanafba way leedahay oo xumadda ragga soo mariya gabdhaha garanaya soo jeedkii
horena way idin soo marteen xildhibaanada halkan jooga marka taas ay nagu soo waajahan xanaf la'aan runtii ha ahaato oo qofku ilaahayna ha ku kalsoonaado waana la tartamayaa 46 xildhibaan oo inoo soo baxa inagu waxaan jecelnahay inay noo soo wada noqdaan xildhibaanadeennii hore ayuunbaa inoo soo bixi doono rag iyo gabdhaba insha Allah biidmillaahi alkariim ugu dambeyn waxaan bogaadinayaa doorka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo runtii guusha iyo qabsoomida doorashada door weyn ku lahaa taageero hagar la'aan ahna u soo jeediyay ku lahaa intii ay doorashadu qabsoomaysay qabanqaabadeedii iyo soo bixitaankeediiba labadaba ishana ku hayay xil weynna iska saaray haddana diyaar u ah doorashada golaha shacabka ee nagu soo aadan kaalinta uu ka leeyahay in uu ka qaato inagalana shaqeeyo waxaan leeyahay hambalyo midnimada aynu sameynay aynu ka dhabayno aynuna muujinay inaynu mid nahay dan mid ahna u taaganahay reer waqooyi u taaganahay ta Soomaaliyeedna u taaganahay Soomaha